ciro iyo xasan sheekh markay noqoto horta waa midda koowaad ee ciro waa nin odaya oo degan akhlaaq fiican ballantana ku fiican waa shakhsiya xasanna waa nin laalaa badan khiyaamo badan fudaydna ku jiro oo ilo meeraysa badan leh labadan nin saasay horta kala yihiin siyaasadooda markay noqotona ninkan waa diblomaasi wax badan ka fahamsan siyaasadda dibadda ninkaana siyaasadda dibadda shaqo kuma leh waa ninka maalintiina ka degaya masar subax galabtiina ka degaya etoobiya subax dambana qadar soo maraya siyaasadda wuxuu u fahmay maalin leh meel laga qadeeyay keliya saas uu qaatay diblomaasiyaddii dibadda waa ku fashilmay wasiir arrimo dibadeedna dafiqi baa u ahaa iyadan waa ku muujinaysaa sida looga horeeyo dhinaca diblomaasiyadda marka ciro cidlo uga tegey marka ciro dibaddana xasan waa uga horeeya oo guulo waaweyn buuba hadda ka keenay hal sano gudaheed meesha xasan 4 sano uu diblomaasiyadda soomaalida waxba ka keeni waayey weliba iyadoo la rabo oo dowlado badan ay xushmaynayaan oo danaynayaan oo soomaaliya dan laga leeyahay oo dowladda dhexe la rabo in dad badan heshiisyo la galaan iyo dowlado badan uu ka faa'iideysan waayo soomaalidana uga faa'iideyn waayo waxaa laga qaaday barnaamijka cunaqabataynta hubka waxaa laga qaaday deyntii baa laga cafiyey barnaamijyo badan baa loo sameeyey aysan dowladda federaalku ayadoo ka shaqayn laakiin waa ka faa'iideyn waaye soomaalida waa uga faa'iideyn waaye meesha ciro hal sano gudaheedu talada hayay somaliland meesha aragtay hadda keenay aqoonsi marka koowaad dowlad inay ku dhirato la aqoonsado masraxa caalamka uu karaamo iyo sharaf ku helay iyo cizi hadda tusaale ahaan dadka soomaaliyeed markii la sinjiga soomaaliga ah waa hore hadee waa meel walba shir la tago soomaalidu dad maaragtay xaaladan ugu adag waxaan u baahanahay in dhaqaalahana laga taageero dowlad daciifa kala qaybsanaan baa la arkayay laakiin ciro hadda halkii sano uu joogay waxaa isku soo batay un oo kale hadda hal maalin baa somaliland egeeda 130 jeer lagu soo celiyey ninkii qofkii diblomaasiga hadlaana wuxuu lahaa somaliland dal dimuqraadiyad sameeyey horumar sameeyey marka waxaa soo baxday inay jiraanba dad soomaaliyeed oo geeska afrika ku nool oo soomaalida qayb ka ah oo horumar iyo diblomaasiyad iyo dowladnimo iyo sharaf samaynaya oo hore u soconay muuqaalkii dadka soomaalida bay xataa wax ka tareen way bedeshay taas waa mid sidoo kalena somaliland guul weyn buu u keenay oo diblomaasiyadeed oo siyaasadeed oo sumcad iyo sharaf iyo saamayn xoog badan aysan weligeed 40 sano soo dhaafay somaliland ay samayn marka masraxa dibadda ciro cidlo uga tegay ninkii la xasan sheekh gudihii markii la yiraahdo ninkii la ciro markuu gacanta ku dhigay somaliland beelay u kala fadhiday ciidankii qarankuna waa burburay maleeshiya beelaad baana soo baxay beelihii kale oo aan ahayn beesha dhaxana cuqdad baa gashay waa la kala fogaan laascaanoodna gacantay ka baxdo dagaal sokeeyaa ka dhacay intaasuu gacanta ku dhigay dhaqaaluhuna dhulku yaalla deyn tiro badanna dowladdu waa ku jirtay maanta laakiin ciidankii qaranku dib u dhisay maleeshiya beeleedkii buu habeeyey midnimadii dadku soo ceshay beeshii dhexa buu mideeyey beelihii kaloo darafyadu soo ceshay oo mideeyey niyad wanaag buu muujiyey dowladdiisii buu isku duubay xaaladii hargeysa oo kacsanayd buu gacanta ku dhigay amnigii magaalada hargeysa oo sii xumaanayay buu gacanta ku qabtay maanta somaliland hadduu ninkaasi hal sano oo dambe sida hadda uu wax ku wado kusii wado meel fiican bay gaaraysaa ninka la yidhahdo xasan sheekhna soomaaliya waa sii kala qaybiyey waa sii kala dhimatay midnimadii siyaasadda lagu kala tegey awalba siyaasad yar baa lagu midaysanaa dhaqaale laguma midaysanen cashuur laguma midaysanen wax kale laguma midaysanen intiina waa burburtay maanta waxaa laga laayahay isagoo doorashadii 3 bilood kala adahay war doorashada aan ka wada hadalno taasina waxay ku muujinaysaa siyaasaddii gudahana ciro inuu uga dheereeyey